السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتكم حرن جنال كمركز السود واضح أدي هذا ومهتسنتهين maanta waa 25 bisha December 2020 sanadka 2024 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago dadka Soomaaliyeed ee ugu xiranow maxaad ka ogtahay sharciyada dhinaca safarka ah ee dhawaan wadanka Mareykanka ka dhaqan galay oo dowladda federaalka ay soo rogtay sharciyadaasi waa sharciyo xuquuq siinaya dadka shacabka ah ee diyaaradaha raaco ama nooc kasta oo kamid ah transportation-ka ama gaadiidka iyo sidoo kalena waxaan idin wadaagi doonaa laysanka rasmiga ama ID-ga rasmiga ah ee dowladda federaalka ay soo rogtay oo haddii aadan wadan wadanka gudihiisa aadan ku safri karin goorma ayay tahay waqtiga kama dambaysta oo loo baahan yahay inaad soo qaadato maalin dhaweed waxaan idin sheegay shimbirka qaranka in loo aqoonsaday gorgorka madaxa cad madaxweyne Joe Biden ayaa shalay qalinka ku duugay oo sharcigii Congress-ka ay meel mariyeen saxiixay isla markaana si rasmi ah ayuu sharci u noqday aan ku bilaabo dadkeena Soomaaliyeed inta badan marka ay safrayaan sharci ama xuquuqdooda dhinaca safarka ah ma yaqaanaan intooda badan waxa laga yaabaa xitaa tikitka markay jaranayaan tikitka qofku markuu jaranayo waxa uu yahay refundable iyo non refundable ticket lacagtiisa lagu soo celin karo iyo mid aan lagu soo celin karin marka inta badan agency ay ka jirtaan ama dadku qaar online ka ay ka jirtaan marka waxa fiican abka ay shirkadda diyaaradda ay leedahay inaad inta soo dejisato aad halkaasi ticketka aad ka jarato si xuquuqdaada aad markaasi u ogaato marka haddii gacan saddexaad ay ku jirtay waxa laga yaabaa inta badan agency-ga ku jirayna marka aad soo wacdo wax ka qaldamaan inuu ku yiraahdo waxba kuma qaban karo dad fara badan ayay arintaasi ku dhacday kuwa qaarkoodna waa laga yaabaa agency-yada inay ku raadiyaan ticketka ay ku bedelaan oo ay kula shaqeeyaan laakiin intooda badan waxba kuma qaban karna ayay ku leeyihiin haddaba madaxweyne Joe Biden iyo wasiirka gaadiidka Pete Buttigieg ayaa sanad ka hor waxay ku dhawaaqeen sharciyo xuquuq dadka shacabka ee Mareykanka ee diyaaradaha raaco siinaya maadaama inta badan diyaaraduhu inta badan monopoly ay dadka ku haysan jireen oo waxay rabaan ay iska sameyn jireen laakiin dowladda federaalka waxay tiri arrintan arrin soconaysa ma waa in sharciyo la soo rogaa marka ku dhawaad muddo sanad ayaa la siiyay diyaaradaha si sharciyadaasi ay u dhaqan galiyaan sharciyadan marka hadda aan idin wadaagi doono waxay dhaqan galeen horaantii bishii 11aad ee hadda la soo dhaafay ee November ayay si rasmi ah u dhaqan galeen waa ku dhawaad 2 bilood ka hor sharciyadan maxay yihiin marka aad wadanka gudihiisa aad soo safrayso ama wadanka dibadiisa aad u safrayso labaduba sharciyadan waa ay quseynayaan marka inaad si wanaagsan u dhageysato ayaa fiican haddii diyaaradii aad raaci lahayd ay diyaaraddu ay kansasho ama sidoo kalena dib u dhac uu ku yimaado maxay kula gudboon ama maxaad sameynaysaa iyo sidoo kalena diyaaradda dhankeeda qalad haddii uu ka yimaado oo ciladu dhanka diyaaradda ay tahay ama sidoo kalena masiibo dabiici ay dhacday sida baraf ayaa da'ay duufaan ayaa dhacday tornado ayaa dhacday roobab xooggan ayaa da'aya waxyaabahaasi masiibooyinka dabiiciga ah kuma jiraan waxyaabaha shirkadaha qabanaya laakiin qalad dhanka diyaaradda ka yimid hadduu yahay maxay tahay waxyaabaha looga baahan yahay diyaaraddu inay samayso diyaaraddu haddii ay kansasho diyaaradii aad raaci lahayd ama wadanka dibadiisa uga safar ama gudihiisa ku safar waa qalab dhanka diyaaradda ka yimid haddii aysan masiibo dabiici aysan jirin oo loo kansalay sida waxyaabihii aan hadda idin sheegay marka wadanka gudihiisa haddii aad doonayso inaad isaga safarto oo diyaaraddaadii la kansalo amaba muddo 3 saacadood ka badan diyaaraddu ay dib u dhigto safarkaadii waxa aad diyaaradda xaq ugu leedahay in lacag ka bilaabanaysa $200 ay ku siiyaan tikidkaadiina ay si free ah kuugu bedelaan oo wax lacag ah oo kale aan laga qaadaynin waxyaabaha xaq aad u yeelanayso waxa kamid ah in haddii ay dhacdo in hotel lagu geeyo hotelka lacagtiisa ay bixiyaan cuntada ay bixiyaan gaadiidka aad ku tagi lahaydna ay bixiyaan markaasi diyaaradda counterkeeda ayaa tagaysaa qofka fadhiyo ayaad la hadlaysaa diyaaraddaadii haddii la kansalay amaba sidoo kalena aan loo kansalin masiibo dabiici oo dhacday sida baraf roob da'ay duufaan dhacday waxyaabahaas haddii aan loo kansalin dab kacay haddii aan loo kansalin oo diyaaradda qaladkeeda ay tahay intaasi oo idil xaq ayaad ugu leedahay inta badan marka aad tagto counterka waxa ay ku siinayaan dadka fadhiya voucher wax la yiraahdo hotelka aad ku degi karto cunto aad ku cuni karto haddii aad Uber ama taxi qaadatana hadhowdii lacagtaasi shirkadda ayaad u soo diraysaa oo lacagtaadi
lacagtaadii dib ayay kugu soo celinayaan kaaga baxday Uberkii laftigii amaba sidoo kale taxigii waxyaabihii aad raacday transportationka ahaa diyaaraddu marka hadday international tahay iyaduna oo wadanka dibadiisa aad ka safraysay diyaaradaada haddii ay kambaniga uu kansalo amaba wax ka badan 6 saacadood ay dib u dhigaan isla xuquuqdii oo kale ayaad yeelanaysaa waxyaabaha kale waxa kamid ah airportkii aad ka bixi lahayd ayay diyaaraddu bedeshay sidoo kalena qaladka ayaga iskale xuquuqdaada waad leedahay haddii ay connection ku daraan macnaha Mareykan aad ka baxaysay kaba soo qaad Europe meel kamid ayaa transit ku ahayd hal connection ayaad lahayd Africa ayaad u socotay connection labaad ayay ku dareen oo adiga qaladkaadaan ahayn ayaga qaladkooda ayay noqonaysaa waxa kamid ah sidoo kale downgrade inta badan Soomaalidu kursi ma qabsadaan tikitka waa iska jartaan laakiin haddii kursigii aad qabsatay kursi aan ahayn lagu fariisiyo waa qalad diyaaradda ka yimid xuquuq ayaad leedahay sidoo kalena diyaaradii ayaa la bedelay inta badan Soomaalideena diyaaradda aan raacayna ma fiirino tikitka waan iska jaranaa laakiin waxaa jirto diyaaradda aad raacaysa inaad iska hubiso tikidkaada ayay ku qoran tahay haddii diyaaradii mid aan ahayn lagu saarayo ama ka yar ama sidoo ceeri ah waxa xaq u leedahay sidoo kale xuquuq ayaad yeelanaysaa boorsooyinka sidoo kalena aad checking garaysay boorsooyinka waxay isugu jiraan carry on iyo check in waxa la yiraahdaa boorsooyinka diyaaradda la saarayo qaybta hoose ee diyaaradda laga saaro carry on kana waa mid aad qaadato qaybta kore ee diyaaradda aad gashanayso adiga kula soconayso marka haddii baagi ama boorsadii aad jacket garayso diyaaradda qaybta hoose laga saaray sidoo kalena waqtigii loogu talagalay aysan ku imaanin wadanka gudihiisa hadaad u safrayso 12 saacadood ka badan haddii aad boorsadaadii wayso haddii aad wadanka dibadiisa aad ka safraysana 15 saacadood ilaa 30 saacadood boorsadaadii ay kugu imaan wayso hadba waxay ku xiran tahay safarkaada inta uu la ekaa arrintaasina sidoo kalena waxa aad xaq ugu leedahay diyaaradda inay xuquuqdaadii ay ku siiso waxa sidoo kale kamid ah wifi oo kale haddii aad lacag ka bixiso shaqeyn waayo ayadana sidoo kalena xuquuq ayaad ku yeelanaysaa marka qofku waxa fiican xuquuqdiisa inuu ogaado marka uu safrayo marka waxyaabahaasi oo idin waxay yihiin waxyaabaha diyaaradda qalad dhankeeda ka yimid waxa kamid ah cruise scheduling oo kale diyaaradu waxay sameeyaan diyaaradii aad raaci lahayd gobol kale ayay ka imaanaysaa waa ay soo dahday markii ay timid waxa la yiri baylodadii saacadihi ayaa ka dhamaaday diyaarad kasta waa inay leedahay flight attendant oo shaqaalaha diyaaradda gudaheeda ka shaqeynaya dadka cuntada siinaya 2 pilot waa wadanka gudihiisa wadanka dibadiisa haddii safar dibadda aad galaysana bayladu intaas inay ka bataan ayaa laga yaabaa marka diyaaradda haddii ay tiraahdo baaladii aad saacadihii ka dhamaadeen saacada ayay ku shaqeeyeen ama kurugii kale ayaa saacadihii ka dhamaadeen waa qalad dhankooda ka yimid adigiina waxaa laga yaabaa inaad shir u socotay inaad aroos u socotay inaad waxyaabo meel muhiima aad u socotay oo dib u dhac kugu yimid marka qaladkaasi qalad dhanka diyaaradda ka yimid waayo markastana waxaa laga rabaa in xuquuqdooda ay bixiyaan waxyaabaha lacag aadan ku helaynin marka waxa kamid ah adigoo kala xanuunsaday waa safri lahayd waa qalad dhankaada ka yimid waa xanuun yimid lama celin karo sidoo kalena waxa kamid ah in diyaaradii weatherka si ay sheegay cimladii xumaatay waxyaabahaas oo idin waxa sidoo kamid ah air traffic controllerska taas waa federal macnaha diyaaradaha kuwa kala haga airportkii ayaa dad ma aysan jirin wax diyaaradii kala hagaya arrintaas oo kale wax lacag ma helaysid waxa kamid ah sidoo kale madaxweynuhu markii uu ku dhawaaqay waxa uu ku dhawaaqay website-ka la yiraahdo flightrights.gov halkaasi oo qofku cabashadiisa uu ku gudbin karo dowladda federaalka uu u gudbin karo haddii xuquuqda diyaaradda uu ku lahaa ay siin waayaan marka waxyaabahaasi oo idil waxa fiican shacabku inay ogaadaan haddii marka aad credit card aad ku iibsatay tikidkaada muddo 7 maalmood gudahooda lacagtaasi 200 ama ka badan waa inaad heshaa haddii wadanka gudihiisa waaye haddii sidoo kalena aad nuucyo kale ama cash aad ku iibisay ama debit aad tikidkaada ku iibsatana 20 maalmood gudahood waa in lacagtaadii lagu soo celiya sidoo kale waxa jirtay hadda 2 toddobaad ka hor madaxda shirkadaha waaweyn sida United Spirit Delta Frontier American in guddiga Congress-ka ee amniga gudaha ay u yeereen isla markaana waxa su'aalo laga weydiiyay qaar ka mid ah diyaaradaha sida Spirit iyo sidoo kale Frontier waxa ay lacag fara badan ka qaadaan boorsooyinka carry on ka la yiraahdo qofku gacanta uu ku qaadan karo qaybta kore ee diyaaradda markaad gudaha gasho aad gashan karto ay lacag fara badan ka qaadeen 26 bilyan ayay ka qaadeen waxa la yiri boorso kasto $5 iyo $10 ay dadka ku jaagareen junkie fees la yiraahdo waa lacagaha qarsoon Congress-ku marka arrintaas su'aalo ay ka weydiiyeen waxa la yiri sababta dadka lacagaha boorsooyinka carry on ka uga qaadaysan maxay tahay sidoo kalena lacag 12
5 bilyan ah ayaa diyaaradaha American, Delta, United, Spirit, Frontier waxay sidoo kale ka qaadayeen kuraasta dadku ay fariisanayaan ayay lacaga ka qaadayeen. arrintaasna su'aalo ayaa laga weydiiyey. boorsooyinka check-inka oo diyaaradda la saaran diyaaradaha qaarkood waxaa la leeyahay $30 ilaa iyo $35 ay ka qaadeen, marka waa sharci darro. arrintaasna su'aalo ayaa laga weydiiyey madaxda shirkadaha ugu waaweyn ee diyaaradaha ee wadanka. waxaana la yiri waa inaad joojisaan waxyaabaha sharci darrada ama lacagaha qarsoon ee dadka shacabka aad ku jaadgareynaysaa. marka aad safrayso xuquuqdaada ogow. inta badan Soomaalideena waxaan sameynaa diyaaradii waa la kansalay, gurigaan isaga laabanaa, saaxiibaan wacnaa wareey maawniyo diyaaradii waa la kansalay ama dib u dhac ayaa dhacay. inta badan xuquuqdeena ma raadsano. marka waa sharci ayaa hadda laga dhigay. diyaaradaha dowladda federaalka ah ayaa waxay tiri waa inay shacabka ay xuquuqdooda ay eegaan. markii hore diyaaraduhu wixii ay rabaan ayay iska sameyn jireen, walow diyaaradaha qaarkood ay waxyaabo ay bixin jireen, laakiin hadda sharci ayaa laga dhigay. marka waa inaad ogaataa xuquuqdaada. dhinaca kale wadanku waxa uu yeeshay national ID, wax la yiraahdo ID isku mid ah. Driver license-gaada 3 sano ee la soo dhaafay haddii aadan bedelin waxaad haysataa 4 bilood oo aad ku bedeli karto. 7 bisha May oo ah bisha shanaad ee sanadka 2025 marka la gaaro wadanka gudihiisa eeraboorada kama safri kartid haddii ID-ga rasmiga aadan haysan. ID-ga rasmiga waxa uu yahay waa inuu xidig qaybta midig ee sare uu ku leeyahay. isku mid ayaa laga dhigay. sababta loo bedelay wasaaradda amniga gudaha waxay tiri weeraradii 9/11 ee sanadkii 2001 dhacay, qaar ka mid ah dadka weeraradaasi fuliyo oo diyaaradaha saarnaa waxay haysteen ama ay wateen ID fake ah. marka wadanka oo dhan isku mid ayaa laga dhigay. 4 bilood ayaad haysataa inaad ku bedelato. haddii kale waxay noqonaysaa baasaboorkaada wadanka gudihiisa markaad ku safrayso inaad qaadato. marka haddii aadan bedelin 3 sano la soo dhaafay ID-gaada ama driver license-gaada waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan 4 bilood ee soo socota aad ku bedeshaa. sidoo kalena xarumaha dowladda ma gali doontid haddii aadan ID-gaasi rasmiga ah aadan wadanin. marka muddo 4 bilood ayaad haysataa. haddii waa inaad BMV-da tagtaa, isla markaana lacagtii marka aad ID-ga qaadanayso ama driver license kaaga bixi jirtay oo kaliya ayaa kaaga baxayso. marka 4 bilood gudahooda ayaa haysataa inaad ku bedelato. haddii kale wadanka gudihiisa laga bilaabo 7 bisha May ee shanaad ee soo socota wixii ka dambeeya kuma safri kartid. madaxweyne Joe Biden shalay waxa uu si rasmi ah u saxeexay sharcigii loogu aqoonsanayay shimbirka qaranka inuu yahay gorgorka madaxa cad. ilaa iyo 1782 ayuu astaanta dowladda meel kasta uu ku sawirnaa. baasaboorka waa uu ku sawiran yahay, dharka uniformka ciidamadu ay wataan uu ku sawiran yahay, xarumaha dowladda oo dhan astaan uu ku sawiran yahay. marka sidaa darteed sharcigan labada aqal ayaa meel mariyay. madaxweynuhuna sharci ayuu ka dhigay laga bilaabo maalnimadii shalay markii madaxweynuhu saxeexay gorgorkan madaxa cad amaba cirada leh ayaa waxa uu noqonayaa shimbirka qaranka loo aqoonsaday. sidaasina sharcigaas nin degan gobolka Minnesota gaar ahaan Wabash magaalo la yiraahdo ayaa soo diyaariyay. kadibna xubno ka tirsan Congress oo Minnesota laga soo doorto ayaa geeyay. July ayuu sanadku meel mariyay. 2 toddobaad ka horna aqalka hoose wakiilada ayaa meel mariyay. madaxweynaha ayaa loo geeyay shalay si rasmi ah ayuuna u saxeexay marka inuu bald eagle-ka uu yahay national bird ama shimbirka qaranka ee Mareykanka. 240 sano oo taariikhda Mareykanka uu jirayna astaan ayuu ahaa, laakiin aqoonsi rasmi ah ma uusan haysanin. hadda ayaa si rasmi ah loo aqoonsaday. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen Cilmi Waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo.